ciidamo uu hogaaminayo Cabdi Mudobe oo ah jarnaal sare oo ka tirsan ciidamada SSC ayaa waxa uu gaaray duleedka magaalada Burco halkaasi oo loogu talagalay inay ka sameeyaan arbushaad iyo waxyaabaha ay ka wadaan ciidamada Somaliland gudaha Laascaanood lamid in iyaguna halkaasi ay ka bilaabaan jabhadaha xooggan ayaa maalmo u dambeeyay waxa ay isku fidiyeen gobolada SSC kuwaas oo ka soo jeedo jabhada amaba iska caabinta jabhada SSC Khaatumo iyagoo doonayo dhulkooda inay hantiyaan waxaa kaloo barnaamijkeenan asagana aan kusoo qaadan doonaa Somaliland waxa ay bilowday inay beegsato xildhibaanada ka soo jeeda gobolada SSC ee hadda iyaga la joogo kuwaasi oo eedeymo ay u soo jeediyeen haddaba xildhibaanadaasi ay farta ku fiiqeen waan dul istaagi doonaa xasan sheekh maxamuud waxaa la qabanqaabinayaa mudaharaad looga soo horjeedo kaasi oo ka dhici doono London mudaharaadkaasi waxa uu ku qotomana barnaamijkeenan ayuu qayb ka noqon doonaa muuqaalkan waxaa barnaamijkan aan dhahay waxay la falanqeyn doono saaxiibkay Gooni oo arrimahan si weyn ula socday waxaa qayb ka noqon doono kulan maanta ay yeesheen garaadada iyo ismada SSC Khaatumo iyo kuwa Puntland wax looga hadlayna barnaamijka qayb ka ahaan doona Gooni ma kore soo dhawow hadii aan ku bilowno Cabdi Mudobe shaqadiisa mataqaana uu wata isla markaana ilaa Burco lagu sheegaya mataqaana inuu gaaray duleedka magaalada Burco عكاش ما صدق إن عبد المذوب وحلو حرص عليه إنه كور كانوا مدام ذكر رئيس مالن إنه بتكونوا ليين ذكر رئيس سنة قح إدواته يرب ملعلة وكدليه إنه أيجنا كور كانوا كلالك أوجرسي عبد المذوب وعدكم رأي إن هرجيسو يبرع لك دريم دونه كلالك لا سعانود لك دريمه مركا إنه حله عيدم إلا يزداد بقول جاري ووتل لو وتل جلي إنه محل جد قلنا سميان برعنا ويران مالك لو مقالوين كسومال يدقين دقيان وكلالك جارسيان أيال الدياري عيد ما سنو حكوا جايين اللي هذا برعو دولات كبرع أي نجوان مركو حلقيا بين مقالة دقيان مالك لنا دقيان إن عيد ما جد كأوجلان إن الصحيدة كجران عيد ما سومال وحياة بدنا الدياري marka arintaasi in culays ay u keentay maamulka musabbixin wuxuu amar degdeg siiyay taliyaasha ciidamada inay ka hortagaan Cabdi Mudobe iyo ciidanka wato Cabdi Mudobe waa nin caan ah ee gobolada SSC iyo Somaliland si fiican u kala yaqaano waa marka ciidamadan waa ciidamo lug ah oo loogu talagalay inay lugayaan oo kaliya ciidamada Somaliland ayagu ma lugayaan oo wadada ayay kaliya hayaan oo waxay ku soo gaaraan Laascaanood Hargeysa tagaan Burco tagaan marka wadadaas ay mar walba ku sii socdanay marka ciidamo door gala iyo ciidamo magaalooyinka tuulooyinka u galay wax isma yaqaanaan marka ciidamadana loo diyaariyay waxayna ku wajahayeen sida la sheegay magaalada Burco iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Somaliland waxaa kaloo soo baxay in tuulooyinka dhan oo inta badan ka tirsan oo xukuumada maamulka Somaliland iyo tuulooyinka SSC dhammaan inay habeen maalin iyaga ay joogan macnaha sababtoo ay tahay waa ayaga marka hore loogu talagalay qorshahan muddo isbuuc ka badan ay socday garaadada SSC ayana waxay keeneen qorshe aan in la fadhiyo gooja cadde iyo Laascaanood oo soconayn waxay ugu talagaleen in marka la isbalaariyo oo maadaama dhulkan lagu sugan yahay dhulka SSC oo yahay in SSC wajiyo kala dagaalka ay u yeesho ay bilowdo dagaalo ay ku dhufo ka dhaqaaqa inay maxaa sahayda jidka ay kala qaataan oo mar walba jidka u galaan in maxaa la yiraahdaa Somaliland dhulkooda laga sameeyo bombatuur iyo maxaa la qaraxyo si ay dadka shacabka qalqal ay u galaan marka kuleelkaas ay dareemaan kadibna go'aan lagu gaaro in ciidamada Somaliland la geeyo og kadibna wada hadal la galo lagu garaacayo Laascaanood mid lamid in lagu garaaco marka musabbixi dadka siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Somaliland ay waxay ugu baaqayaan in ciidamada ka soo saaro Laascaanood intii hadda goor tahay hadii kala hadhow ay dhici karto in xaalad wax laga qaban waayo in baashi intay gaarto dagaal badan oo dagaal aad u culus oo isku riqmo inuu ka dhaco in Laascaanood iyo deegaano kale oo ku dhow arcada ay nafteeda go'doon ayaa la galiyay oo hadda ciidamada Somaliland way soo mari jireen dhowr mar lagu weeraray wiilka maxalliga musabbix ayaa arcada meel ka soo shal lagu weeraray marka waxaan waa la diyaariyay waana qorshe socdo meelo fara badan ayaana loo wadaa in Somaliland gudaheeda laga dareemo doono cakaashada ay sheegan garaadada SSC Somaliland waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda SSC inay iyaga ka dambeeyaan colaadda ka jirta magaalada Laascaanood garaadada ay bariyaha horta waa lagu eedeynaa garaadada Somaliland iska soo jeeda laakiin xildhibaano ayaga ka tirsan ay waxay ku qaadeen weerar waxayna sheegaan inay ka soo jeedaan arcada iyo meelo kale waliba xildhibaanka hadda aadka loogu dhagan yahay wuxuu ka soo jeedaa magaalada arcada waxayna sheegeen in ninkaas magaciisa lagu magacaabo Saalax wuxuu ka tirsan yahay xildhibaanada baarlamaanka Somaliland waxayna sheegeen in ugu dambeyn baaritaan lagu sameyn doono iyadoo laga yaabo in xasanada laga qaado marka waxaan waxa lagu marmarsimoonayaa ciidamada maxaa la yiraahdaa waxa lagu marmarsimoonayaa arrintan SSC xildhibaanadeed ayaa loo socdaa in meesha laga saaro
marka waxaa laga bilaabayaa 2 iyo 3 xildhibaan laga bilaabaa kadibna xasanadii ayaa idin kala laabtaa leeyahay marka arrintaas waxaa loo socdaa gebi ahaan in lasoo afjaro xildhibaanada hadda ku sugan Hargeysa ee ka soo jeeda SSC in gebi ahaanba laga saaro maxaa la yiraahdaa saaxadda siyaasadda ee Somaliland qorshahaas ayaa socdo waxay kale oo socdaan ninkii Cabdisaaq Khaliif oo asaguna ah gudoomiyaha golaha wakiilada inuu maxaa la yiraahdaa asagana dhibaato loo geysto ama xilkii waa laga qaaday la yiraahdo qorshahaas noo socdaa marka gebi ahaanba waxaa la rabaa arrinta SSC in maxaa la yiraahdaa dadka SSC ka soo jeedo in la soo afjaro ayaa laga yaabaa arrintaas oo dhibaato weyn ku keeni doonto xildhibaanada hadda weli ku adkeysanaya inay la shaqeeyaan Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa waad mahadsan tahay saaxiib Gooni haddii aan guda galno ama aan sii wadno barnaamijkeena qaybtiisa kale qaar ka mid ah garaadadu maanta waxay ay kulan la qaateen boqor Burhaan oo ku sugan magaalada Garowe iyo istimada kala duwan ee ku sugan Garowe haddaba maxay ka wada hadleen maanta garaadada maanta ku sugan magaalada maxaa la yiraahdaa Garowe oo waliba garaadada SSC ka soo jeeda ay waxay qada sharaf u sameeyeen dhammaan nabadoonnada iyo odayaasha harti maxaa ku sugan deegaanadaas iyo deegaanada ku dhow ayagoo markaas qada sharaf weyn u sameeyay dadka maxaa la yiraahdaa ismada iyo malaaqyada iyo garaadada dhamaantood waxay ku kulmeen Garowe waxaana halkaas lagu sameeyay qada sharaf iswaraysi ayaana loo sameeyay oo halkaas isku xog wareysteen qaabka dagaalada loo wajihi karo in guuldaro laga macnaha laga hortago Muuse Biixi Cabdi maamulkiisana weer lagu qaado si loo soo afjaro maxaa la yiraahdaa ciidamada Somaliland ee muddo fara badan ee 3 bilood ka badan ku sugan dowladka magaalada Laascaanood waxayna go'aan ku gaareen in ugu dambeyn la iska kaashado arrintaasi hub iyo saanad militarina labada dhinacba ay diyaariyaan ugu dambeynna Muuse Biixi iyo maamulkiisa la soo afjaro kaasho anaada dhankaasi koonfur madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu waday dadaalo ku saabsan la dagaalanka ururka Al-Shabaab waxaa jira mudaharaad la doonayo in la qaban qaabiyo kaasoo ka dhici doona London laga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya haddaba mudaharaadkaasi muxuu salka ku hayaa mudaharaadkaasi horta waxaa iftiimiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu sheegay in dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab oo madaxweynaha Soomaaliya kaligiis ku noqday qof kale oo ku taageerayna aysan jirin dadka ka hoos shaqeynayna ay diidan yihiin in shabaab lala dagaalamo marka wuxuu sheegay in banaanbax laga qabanqaabinayo magaalada London ee cariga Ingiriiska kadib markuu madaxweynaha Soomaaliya uu Ingiriiska tago ayadoo la sheegay in lagu caanshubi doono ama la calaam saari doono Amir Charleska boqorka u ah wadankaasi Ingiriiska markii calaam saarka la sameeyana qowmiyad walbaba waxa uu soo bixi doono dadka London joogo ee ka soo jeedo macnaha halkaas sida Soomaalida Ingiriiska wadamada Carabta qolo walba markay imaado madaxda ay ka soo qayb galaan qolo walba waxa soo bixaysa dadka ka soo jeedo ama Soomaaliya ka soo jeedo ama wadanka ka soo jeedo marka waxa la leeyahay qolo waxa la diyaariyay Soomaali ah oo markaas banaanbax iyo mudaharaad ku bilaabi doonto ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud ayagoo markaas iska dhigayo inay siyaasadda Xasan Maxamuud ka soo horjeedaan laakiin hoos ka taageersan shabaabka sida wararka nagu soo gaaraya marka waxaa ciwaan looga dhigay barnaamijkaasi shabaab oo maxaa la yiraahdaa ka soo horjeedo oo banaanbax ka sameynaya wadamada dibadda ayagoo ka soo horjeeda Xasan Sheekh Maxamuud marka qaab siyaasadeedsan waa marka almuhiim waxaa laga yaabaa in wadamo kale ay ku bixiyaan dhaqaale siyaasad kalena ay ka wataan laakiin waxaa waaye shabaabkii oo dibadda banaanbax ku dhiganaya ayaa halaas looga dhigay waxaana dowladda Xasan Maxamuud ay la dagaalamaysa muddooyinkii lasoo dhaafayba sida ururka Al-Shabaab looga saari lahaa gebi ahaanba Soomaaliya arrintaas oo wadamo fara badan iyo wadamo maxaa la yiraahdaa Carabta iyo Yurub ka mid ah reer galbeedkaba ay ka soo horjeedaan ayagoo laga yaabo in arrintaas ayagu ka dambeeyaan gooni waxay kor martay hal mar aan kugu soo noqday amiirada Al-Shabaab ee doonayo inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya magacyadooda xataa waa la shaaciyay waxa ay dad ay kala yihiin iyo waliba dhibka xilliga matqana ku kalifay inay is soo dhiibaan amiirada shabaab waxa waaye markii hore waxa ku kalifay in horta ayaga ayaa dagaal dhaxmaray oo dagaalkaas dhaxmaray ayaa culays keenay marka maadaama dagaalka culays oo keenay dhexdooda isdagaaleen mahad karatay ninka la yiraahdo ayaa isku dayay inuu saldanada ama awoodda ugu sareysa shabaabka inuu qabsado kadibna dhowr amiir ayuu weeraray oo ragga saraakiisha sare ah markaas arrintu waxay keentay in laba la kala baxo hadda waxaa la leeyahay ragga ugu sarreeya amiirada waxay rabaan inay dowladda wada hadal la galaan kadibna dowladda ay isku dhiibaan weliba xiriir toos waxay la soo sameeyeen mahad maxamed salaad oo ah taliyaha hay'adda NISA iyadoo markaas ragga ay xiriirka la soo sameeyo ka mid yahay Axmed Diiriye Abu Cubayda ninka la yiraahdo waa ninkii ugu sarreeya ururka Al-Shabaab waxaa kaloo ka mid ah nin la yiraahdo Abu Muslim oo ka soo jeedo magaalada Buur waxaa kaloo jiro rag kale oo ayagana ka soo jeedo Puntland oo nin lagu magacaabo Mufti iyo nin kale oo la yiraahdo Maxamed Mire oo ka soo jeedo Puntland ayagana xiriirka ay ku jiraan waa rag saraakiisha ugu sarreeya waxaa kaloo ku jira nin la yiraahdo Cali Afgooye oo asagana ku sugan ka soo jeedo magaalada Afgooye rag aad u fara badan ayaa isbiirsaday dhammaantoodna waxay rabaan inuu ururka Al-Shabaab ka soo goostaan dowladda federaalka Soomaaliya isku dhiibaan maadaama dagaaladii ay kululaadeen shabaabka dhexdoodana dagaal culus oo ka socda Garaactash oo masan tahay daawadayaal waxaan intaas ku soo koobaynaa barnaamijkan kooban ee ku dulmeereynay xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood iyo waliba amiirada Shabaab ee doonayeen isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya iyo waliba mudaharaadka laga soo horjeedo Xasan Sheekh Maxamuud
qabridahar waxaa ka dhacay mudaharaad kaasi oo laga soo horjeedo ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwaasi oo dhibaato ka geystay gudaha magaalada markii ay dhalinyaro halkaasi ay xasuuq u geystay jirdil aad u xooggan iyadoo waliba maamulka uu ka hadlay arrintaana ilaa hadda wax raali gelin ah aysan dowladda Ethiopia aysan ka bixinin balse la doonayo in arrintaasi ay ka garaabaan daawadayaal muuqaalka shirgare asxaabteena la wadaaga intaas ayaan ku